بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، كلمة محاضرة أما درسينا عاوة kulankan aan jeclahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu inoo barakeeyo, wixii khayr iyo sawaabana waafajiyo, wixii aan maqalona ilaahay tabaaraka wa tacaala inugu anfaco oo uu noqdo wax nolosheenna wax ka bedela. kelimadu waxay noqon doontaa cinwaankeedu علاج الهم. همiga iyo murugta walbahaarka qalqa ruuxa ku dhaca marka dambe cudur isu bedela see loo daaweeyaa daawadiisa. waa arrin runtii mudan in la iftiimiyo, khaasatan casrigan aan joogno oo siday culimmada qaarkood ku itlaaqeen waa casru lhumuum walghumuum baa la dhaha. fadal yaa sheekh, jazaaka allah khayr. waa xilli ama zaman cudurkaasi aada u badan yahay oo keliya xataa uusan ku ekayn dadka gaalada ah ee uu saameeyey xataa in badan oo muslimiinta ka mid a. waxaan jeclahay inta aanan gudagelin daawada inaan dhowr muqadimaad ka hormariyo ama hordhac. hamiga waxaa la yidhaahdaa waa ruuxu inuu ka fikiro wax uu ka baqayo oo ku soo socdo, yacni mustaqbalka iyo murugtiisa iyo walbahaarkiisa ayaa hamiga la yidhaahda. xusniga iyo hamiga iyagana waxaa lagu itlaaqaa wax tegey oo ruuxa xanuujinaya ousan waxba ka qaban karin, markuu ka fikirayana waxa la yidhaahdaa xusni baa la yidhahda. marka midna waxay ku saabsan tahay waxyaalihii ku soo maray oo tegey ood ka xanuunsanayso oo aada dareemayso oo dibsanayso oo maskaxdaadu ay aada uga fikirayso. midna waxaa la yidhaahdaa waxyaabo kugu soo socda ama ku haystaba markaa oo aad ka fikirayso ayaa iyadana lagu iطlaaqaa. asalka marka ibni aadamku inuu hamiyo oo wax ka murgo waa sifa laazima la yidhaahda. waa dabiicad ilaahay ku abuuray, waa dabiicad ilaahay ku abuuray inuu hamiyo oo wax doono, wax ka murgo, wixii tegey ka fikiro,
waxa soo socday mustaqbalka inuu ka fikiro waa sifo laazim ah oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku abuuray bal waxa la yiraahdaa min alsaqi sifaati nafsi albashar waa nafta bashariyada sifaadkeeda iyo nuucuudda ay leedahay kuwa ugu run badan waa inay hamido oo haddana shaqo gasho xadiidkii nabiga wuxuu ahaa sallallahu alayhi wasallam oo rasuulku yiri asdaqu al-asmaa'i hammaam wa harith aadamaha magac la siiyo iyo sifo lagu tilmaamo waxa ugu run badan oo si dhaba uga turjumahaya waa hammaam waa mid murug badan oo fikirid badan oo doonid badan kadibna harith waa mid shaqeeya bimacnaa qalbiguna shaqadiisu waa inuu fikiro qalbigu waa inuu shaqadiisu waa inuu hamiyo waa inuu doono waa inuu macnaha u qasdo kadibna xubnihii waa inay shaqo galaan oo qabtaan labadaas sifo baa aadamaha ugu run badan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam sifaadkiisa marka hamigu waa sifo laazim ah nafta sifaadkeeda mid ka mid ah bal waa sifaadkeeda kuwa ugu muhiimsan buu nabiga ku tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh inuu ibn aadamku hami yeeshana masaalix badan baa ku jirta oo ay ka mid tahay maalan cimaaratu al-ard dhulka inuu camiro inuu wax dhiso inuu muxuu ahaay wax koriyo inuu shaqeeyo inuu wax qabto waxa ku xambaaraya waa hamiga hadduusan hami jirin wax badan ma qabteen marka bixaddi daatiha hamiga iyo iraadadaasi qalbiga ka imaanaysaay masaalix aad u fara badan baa ku jirta oo ka dhalanaysa si ahaanteeda marka ceeb ma leh dhibaatana ma leh asal ahaanteeda laakiin waxay dhibaato yeelataa shay walba markii xaddi loogu talagalay uu dhaafo bimacnaa shay walba soohdin buu leeyahay xad ilaahay ugu talagalay buu leeyahay shaygu markuu xaddiisa dhaafo sidiisaba madarru isu bedelaa dhib buu isu bedelaa maalan aadamaha dareenkiisa waxaa ka mid a maalan wuxuu u baahan yahay cunto u baahan yahay gaajuu dareemaya markuu cuntadii helo baahidiisii xad bay leedahay hadduu xaddii dhaafiyo cudur iyo waxay isu bedelaysaa mafsadiya dhib bay isu bedelaysaa cabitaan buu u baahan yahay cabitaanka hadduu xaddiisii dhaafiyo ayadana cudur iyo dhib buu isu bedelaya shahwuu u baahan yahay shahwadii hadduu soohdintii iyo xuduuddeedii dhaafo iyadana madar iyo dhib bay isu bedelaysaa wakadalika hamiga asalkiisu waa wax ilaahay ku abuuray oo sifo laazima maqaasid muhiimana ay ka dhalanayso laakiin markay xaddeeda dhaafto cudur iyo dhib bay isu bedeshaa midda marka la cilaajinayo la leeyahay daawo waa in loo helaaye waa marka ay xuduuddeeda dhaafto waay laakiin intay soohdinteedii xuduuddeeda ku eg tahay bashariyadaaba ku dhisanba ilaahay baa tabaaraka wa tacaala geliyey masaalix weyn baana ku jirta aadamuhu inuu fikiro inuu hamiyo inuu wax doono inuu wax dhiso yani jiritaanka adduunkaaba ilaahay tabaaraka wa tacaala ugu talagalay iyo inuu camiro macna muqadimada labaad ee jeclahay ama saddexaad ee jeclahay inaan tilmaamo waxa weeye iyadana hamigu wuxuu ka imaanayaa qalbiga iyo nafta basharka saan ogsoonnahayba aadamuhu wuxuu ka kooban yahay laba cunsur cunsur waa jidhka waa qolofkan kore waay cunsurna waa ruuxda waay ama nafta waxaa doontaba dheh cunsurka ruuxda ah ayaa waxaa ka mid a sifaadkiisa hamiga ka mid a labadooda midba sifaad buu leeyahay jidhku sifaad buu leeyahay midabkiisu waa cad yahay waa madow yahay waa dheer yahay waa gaaban yahay waa adag yahay waa jilicsan yahay waa jidhka sifaadkiisa waa nafta oo cunsurka labaadana iyaduna sifaad bay leedahay saas daraaddeed nafta aadamaha sifaadkiisa mid ka mida weeye hamigu qalbiguuna ka yimaadaa mar hadday sidaas tahay
nafta iyo ruuxda iyo sifaadkeeda iyo cilaajkeeda iyo xaaladaha ku yimaada aadamuhu aqoonta uu u leeyahay iyo wuxuu ka garanayo waa wax aad u yar basantii ama nisbe aad u yar ayuu ka yaqaanaa ruuxda iyo nafta iyo khasaa'isteeda iyo xataa maadda ahaan waxay ka samaysan tahay rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka waa ka ku tilmaamay masalada la ishaaray oo rabbi yidhi tabaaraka wa tacaala yas'aluunaka can iruux qul iruuxu min amri rabbii wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila ruuxday ku weydiinayaan waxaad tidhaahdood ugu jawaabtaa ruuxdu waa amar alle cilmigana wax yar unbaaba laydinka siiyey waxa ilaahay idin furay oo cilmiga ka mida waa in yar amaa jawaabta ruux maxay tahay iyo su-aashaa jawaabteedu waxa weeyaan waa amar alle waay aadamu wuxuu aada u yaqaanaa oo cilmigiisa ilaa xaddi maa ama ku hor ha noqdo ama ku damba ha noqdee uu si fiican wax uga garanayaa waa jidhka iyo khasaa'istiisa waay laakiin cunsurka labaad ee ruuxda ah aadamaha aqoontiisu waa wax yaroo tajribo uu ku bartay iyo inta badan oo laga qaatay waxyiga laga qaatay kutubta rabbiya samaawiga ah rusushu waxay sheegeen inta ugu badan culuumtu halkaasi ka soo jeegtaa ku saabsan ruuxda iyo arrimaheeda wax weyn baana ku xidhan oo labadooda marka la yidhaahdo ruuxda iyo jidhka marka la yidhaahdo ruuxdaa muhiimsan naftaa muhiimsan ayadaa wax badani ku xidhan yihin saas daraaddeed baa rabbigeen tabaaraka wa tacaala qur-aanka kariimka wuxuu ku dhaartay 10 dhaarood buu isdaba dhigay waa dhaarta ugu dheeree qur-aanka ku timid oo isdaba taalla way hal meel ku soo aroortay 10 dhaarood markuu ku dhaartay rabbi tabaaraka wa tacaala isdaba dhigay wuxuu ku dhaartay aadamaha liibaantiisu waxay ku jirtaa nafta inuu daahiriyo khasaarihiisuna wuxuu ku jiraa inuu nafta dayaco الدنيا خرب رب تبارك وتعالى في سورة الشمس والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وطبعا دارودوا وقارن إلهي مخلوقات كي سوكو دارنيا قارن إساقا اسكو دارنيا ربي تبارك وتعالى وحالو دارتي وحاليباني روحي نفط ظاهرية وحا خساري روحي نفط قرية أما حقرة أما ضيعة مركا خسارها آدمها الدنيا أقرب وحوكوشرا نفتيسا يصيدو أولا دقم liibaantiisa inta liibaantayna waxay ku xidhan tahay nafta iyo kolba say u daahiriyaan ama u hagaajiyaan saas daraaddeed baa waxaad garan kartaa ahmiyaddu waa cunsurka ruuxda iyo aadamuhu ruuxu siduu kolba ula dhaqmo ayaa ay muhiimaddu ku jirtaa waxaan doonayaa marka inaan idhaahno cilmiga ku saabsan tibbiga jidhka aadamaha ku saabsan ama aadamaha masiihadiisaba ku saabsani waxa uu ka garanayo ruuxda iyo xaaladaheeda iyo daawadeeda iyo sifaadkeeda iyo waxyaalaha ku yimaadaay waa nisbe aad u yar baabkaasi waxaa aad uga aqoon roon culimada muxuu ahaay shareecada takhasuska ku leh khaasatan qaarka cinaayada khaaska siiyey waxa loo yaqaano tibbiga waxyigu la yimid oo qur-aanka iyo xadiista nebiga sallallahu alayhi wasallam tibbiga ka soo jeeda culimada ku takhasustay baa aad uga aqoon roon wixii ku saabsan ruuxda iyo xaaladaheeda uga aqoon roon dhakhaatiirta kale muxuu ahaay cilmiga tibbiga takhasuska ku leh waxaa kala gedisan marka cudurka hamiga ama murugta iyo waxa ka dhashay cudurrada yani ka sii dambeeya daaweyntooda markuu dhaco ama intuusan dhicin ka hortagiisa
ama markuu ruuxa ku dhacba daaweyntiisa waxaa ku kala gedisan dariiqada waxyiga iyo dariiqada atibadu way kala duwan yihiin maadaama iyaga aqoontoodu iska kooban tahay waxay ka daaweyn karaan iyo waxay u hayaan waa wax nisbe aad u yar waa laakiin waxyigu qaabab ka gedisan ayuu u daaweeyaa ulana dhaqmaa cudurka hamigu markuu xaddiisa dhaafo oo uu ruuxa cudur ku noqdo waxyaalaha lagu garta waxaa ka mid a cudurkaasi markuu ruuxa hayo waxa la yidhahda alikti'aabka inuu ruuxu muxuu ahaayey xaaladiisa uu noqdo ruux muxuu ahaayey fikirkii iyo waxqabsigii iyo tashigii iyo waxhagaajintii oo dhan intuu ka soo uruursado isagu hoos isugu noqdo waxaa ka mid a hawaska nafsiga ah yani ruuxa marka uu hamigu ku bato waxyaalaha ka dhasha waxaa ka mid a ruuxu waa isla sheekaysanaya isagaa isku mashquulsan isagaa isku maqan waxaa ka dhimanaya wixii kaleete isaga ka baxsanaa oo dhan baa dhimanaya marka dambe wuxuu qaadayaa wax la yidhahdo waswaas yani waswaas buu qaadayaa shaki baa gelaya aadamihii kaleu ka shakinaya yani wixii oo dhan buu wuxuu ka dhiganayaa muxuu ahaayey wax isaga cadowka oho dilahayuu ula muuqanaya dadkii oo dhan buu yuu ka cararhayaa wuxuu leeyahay adduunkan oo dhan baa aniga i raadsanahaya meel fog bay marka la gaadhaysa dadka qaarkood wuxuu ku noqonayaa ama uu u qabanayaa ama uu gaadhayaa heer uu nolosha ka quusto alqunuut min alxayaa inuu nolosha ka quusto oo intuu hamigiisu bato isla hadalkiisa murugtiisa marka dambe heer uu gaadho noloshu inay mugdi ku noqoto oo uu quus gaadho waxaa ka dhalanaya markaa kadib inuu yidhaahdo maba xamili kara culayskeede waa inaan isdhaafiyo oo markaa intixaaro isdilo leanna culays baa saaran waxaa ku madoobaanaya yani noloshan oo dhan baa u khadhaadhaanaysa marka wuxuu bilaabayaa inuu is yidhaahdo daawadu waa inaad khadhaarhkan ka baxdo oo aad adiga dhanba iska tagto stressba cudur la yidhahdaa ku dhacay intixaarkaasuu gelaya marka waxaa ka mid a maalan ruuxu markii hamigiisu bato iyo walbahaarkiisa iyo fikirkiisu zaa'id noqdo marmarka qaarkood halkaa waxaa ka soo galo oo la soo xidhiidha waxa loo yaqaano alarwaaxu shiriira arwaaxda shar kale sida shayaadiinta iyo jinka iyo waxaasaa yaa la soo xidhiidha oo ruuxa markaa waa u jilicsan yahay inay arwaaxda noocaasoo kaleetaa markaasi ay ku sallidmaan wuxuu gaadhayaa marmarka qaarkood ruuxu inuu waasho oo junuun ku dhaco waljunuunu funuun dad badanoo waxaa jira maryo qaba oo yani wax weeyaan soo shallaysta oo maryuhu u dhaqan yihiin oo u feeraysan yihiin oo xaragoonahaya oo haddana waalan baa jira maaha waalidu inaad dhar ka dhigato keliya maaha waalidu waa funuun waayo waa noocyo fara badan oo kala gedisan waayo ruux marka akhiiran waxaa laga yaabaa inuu gaadho nooc waalida inuu gaadho waxaa dhici karta marmarka qaarkood tasarufaad uusan garanaynin maxaa ka imaan doona inuu ku tilaabsado inuu tahlugo galo inuu iska dhaqaaqo inuu muxuu ahaayey qariska tuur noqdo waxyaalahaasoo dhan baa ka dhasha ruuxa markii humuumtu ay ku badato waana runtii arrimo adduunkiisa iyo aakhiradiisaba halis gelin kara cudurkaasi marka daawuu leeyahay daawooyinkiisu dhowr qodob baan ka tilmaamaynaa kolba waqtigu intuu noo saamaxo inuu daawo leeyahay nebigaa tilmaamay salawaatu rabbi wasalaamu calayh oo nebigeenna waxaa ka sugan sal alla alay wasalam xadiid saxiixa dhowr alfaad kala gedisanna ku yimid maa anzala allahu daa'an ilaa anzala lahu dawaa ilaahay cudur ma soo dejinin ilaa daawo u soo dejiyey calimahu man calimahu wa jahilahu man jahilah ninkii ilaahay u furo daawadiisa wuu garan ninkaan ilaahay u furinna garan maayo laakiin cudur jira oo ilaahay soo dejiyo keeno ma jiro ilaa daawo uu leeyahy
aadamaha baa laga yaabaa in aysan ku hanuunin cudurka daawadiis cudurrada ugu khatarsan ee hadda aadamaha laynaya ee adduunka ka jira ee la leeyahay daawa loo leeyahay daawadoodu way jiraan laakiin waa sir ilaahay uusan wali u kashfinin aadamaha uusan u kashfinin waxaad arkaysaa cudurro waa hore dilaa ahaa oo aadamaha baabi'in jiray oo waa hore aan dawaa loo haynin mar dambe daawadeeda la iktishaafay marka waxay ku tusaysaa bini aadamka iyo qusuurka aqoontiisu inay iska kooban tahay laakiin ilaahay tabaaraka wa tacaala cuduroo keenoon daawo lahayn ma jiro ama amraadda nafsiga ha noqoto amraadda jidka ku dhaca ha noqdo labaduba daaway leeyihiin daawooyinkiisa marka waxaa ka mid a xanuunka hadda aan ka hadlayno iyo mushkiladaasi waxyaalaha lagu daaweeya waxaa ka mid oo nabigeena ka sugan sal alla alay wasalam waana midda ugu muhiimsan waay aliimaanu alcamiiq لا سيما الإيمان بالقضاء والقدر بحيث يعلم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه إنه الروح ليه إيمان حيل دير إيمان قطر دير وحديد كل شركيس صفي عن قلبي جيس أو قلي إيمان كمر كان لنا مبادئ إيمان كودن بس أو قلي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره إنه روح إله الرمي ملائكة الرمي رسوش الرمي كتبة الرمي إلهي سود شيء ما أنت آخر الرمي إلهي قدر كيس خير كي يميز كيس شكاب الرمي إيمان صح إنه الروح الإيمان خاصة قضب كهذا وجودا بيو الإيمان بالقضاء والقدر إنه الروح الرميسية هي إلهي تبارك وتعالى قرشها قدرك وكون كان وحيالها كدعون هري وقدري ونقوندي ونقرشي وإنه الرميسية الروح بمعنى الله تبارك وتعالى انتو سن كون كان أبورين oon samada la dhisin oon dhulka la goglin oon aadamo la abuurin 50 sano oo 50 kun oo sano ka hor ayuu ilaahay tabaaraka wa tacaala kataba maqaadiir alkhalaa'iq makhluuqaadkan maqaadiirtoodii buu qoray cilmiga ilaahay bay ku hormartay waa qoray allah tabaaraka wa tacaala markuu doonayo xilliguu doonayo suu doonay u dhacaysa isagaa abuuraya rabbi tabaaraka wa tacaala sidaas daraaddeed waxyaalaha dhacaya kownka ka dhacayaay waa wax sii qorshaysnaa waa qasama baynakum alaarzaaq kama kataba baynakum alaajaal ajashu waa qoran tahay risquna waa qaybsan yahay waxyaalaha kugu dhacayaay waa wax horay loo dejiyey wey saas daraaddeed qalbigaaga markay ku jirto wax ilaahay kugu keenay marna kuma gafeen wax ku seegayood weydayna marna ma aadan hesheen halkaasi daawo weyn baa ku jirta laana ibni aadamku sidiisaba murugta iyo walbahaarka iyo cudurkan inta badan waxaa keena ama wuxuu filayay buu waayay ama wuxuusan filaynin baa ku dhacay labada mid waa wuxuu sugahayay oo aad ugu weynaa buu waayay ama ma ahee wax uu lama filaan oo uusan ku tala gashanayn oo uusan filaynin baa ku habsaday labada mid waa labadoodaba markuu rumaysan yahay inay qornaayeen culays badan ku qaban mayso saas daraaddeed yay culimada qaarkood waxay yidhaahdaan mabda'aas oo ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa inuu ruuxu rumeeyo xataa faa'iido kale haddaysan lahayn ajar aakhare iska daa abaalgud aakhare iska daa inta keliyata adduunka uu ruuxa u qabanaya inta haddii abaalkiisu noqon lahaa waa ku filaan lahaa intaas abaal waa ugu filaan lahaa lanna ruuxii qalbigaa u degay waa degan yahay xaalad kastoo haysata waa degan yahay macnahaas qur-aanka kariimka ilahay ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala fii suurati alxadiid ربي وحده تبارك وتعالى ما أصاب من مصيبة
في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. حيث حكمته لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. wax kasta oo dhulka ka dhacaya intuusan dhicin baa la sii qoray. maxaa loo yeelay leedinku sheegaya likay la taasaw ala ma faatakum, wax idin seegay oo duweydeen inaydan u murgin, wax aad hesheenna inaydan ku kibrin. bimaana waxa dad ogtahay inuu qoran yahay haddii lagu siiyana kibir ma keeno, hadduu ku seegood weydana jazac iyo hami iyo isdil iyo rafaad ma keeno. mabda'a ruuxu markuu rumaysan yahay mar walba qalbigiisu waa degan yahay. likay la ta'saw ala ma faatakum wala tafrahu bima aataakum. laba cudurba waa ka fayowya. cudur nicmadii ilaahay inuu ku kibro isla weynaado isqaad qaado waa ka fayoobaanaya. cudur in musiibadii ku dhacday intuu xamili waayo quusad iyo hami iyo asa iyo ay ku keentana waa ka fayowya. noloshiisu marka waa nolol muctadila. macnaha zaayada quraanka tilmaamaysa waa macnaha meel kale laga cabiray. ilaahay baa qalbigiisa hanuuninaya. ma asaaba min musiibatin illa biidni illah waman yu'min billahi yahdi qalbah. ilaahay qalbigiisu hanuunina ruuxii allah rumeeya oo mabda'aas khaasatan rumeeya ilaahay baa qalbigiisa hanuuninaya. oo markii waxani ku dhacaan ama wuxuu safilaynin ay ku timaado ama wuxuu rabay uu waayo qalbigiisa waa la hanuuninaya, waa la dejinaya macnaha. marka arintu qodobkaasi waa cilaajka ugu weyn oo daawada u ah ama lagaga hortagi karo. saas daraadeed cudurka hamiga iyo isla hadalka iyo muxuu ahaay stressku wuxuu aad ugu badan yahay dadka aan iimaanka lahayn, gaalada ugu badan yahay. waliba wuxuu si gooniya aad ugu sii badan yahay wadamada la yiraahdo income-ka ama dakhliga shakhsiga ah adduunka ayaga ugu fiican, ugu nolol fiican, ya haddana cudurradaasi ku badan yahay. isdilka iyagu ku badan yahay inuu ruuxu isdilo isqaarijiyo. sababtu waxa weeyaan mabda'an iimaankan qadaa iyo qadarka abaa ka maqan. aliimaan bilqadaa walqadar. baynama aad arkayso dhulka muslimiinta ayaa masaa'ibta ugu badan adduunka ka dhaca. dadka dhiban, dadka gaajaysan, dadka rafaadsan, dadka muxuu curyaamada ah, dadka aan waxba haysanin, haddana maca daalika inta badan cudurradaasi kuma badna, waa ka fayowyi. sababtu maxay tahay? waxa weeyaan waa mabda'a musbaqan ba wuxuu sii rumaysan yahay miskiinkani in wixii ku yimaada ilaahay baa keenay. war ilaahay baa keenay, inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. allahumma ajirni fi musibati wakhluf li khayran minha. marna ima gafteen, ilaahay baa ii keenay. halkaasuba kaga gudbayaaba. baynamaa hadday gaalkii ku dhacdo iimaankii difaaci lahaa ama uu kaga gudbi lahaa malaha, iyadaasuu dul istaagayaa, waa ka fikirayaa, kadibna waxay keenaysaa akhiiran marka dambe inay musaa'ibtaasi ku dhacdo. ruuxa muuminka markay musiiba ku dhacdana wuxuu kaga gudbayaa sabir. bal waxaa laga yaabaa inuu sabirka ka sii fiicnaado martaba la yidhaahdo alridaa, martaba kalaa ka sii fiican oo la yidhaahdo martabatu shukr. musiibada saddexdaas waa saddex martabo oo dadka kolba say u kala iimaan fiican yihiin bay la tacaamulka masaa'ibtana ugu kala fiican yihiin. martabada ugu xun ee la doonayo ruuxa muuminka inuu kula tacaamulo waa inuu sabro. sabirka maxaa la yidhaahdaa? waa in asaga oo dhibsanaya haba dhibsado oo culays bay ku haysaa, laakiin waa inuu dul qaato isceliyo oo uu iska celiyo wax khalada inuu ku dhaco. afkiisa inuu ka soo baxo wax khalad ah ama adinkiisa iyo xubnihiisu inay ku tilaabsadaan wax khalad ah oo iscelinaya. marka xabsu nafsi waa iscelinaya isagoo dhibsanaya. waa martabatu sabir. waa martabadaasi marka waxa weeye waa adna almaraatib oo ruuxa muuminka laga rabo. waa martabada xigtay waxa weeye musiibadii ku dhacday waaba raalli buu ku yahay oo xanuunkii qalbiga maba qababa. waa martabad ka sii fiican. waaba ku qanacsan yahay
martabada ka sii fiican waxa weeyaan musiibadii kugu dhacday iyo culayskiya dhibka ku haysta inaad kaba shukridaba waa martabatu shukri alxamdulilah wuu leeyahay caruur ma haysto war ma dhalays baata alxamdulilah war faqiir baata xoolo ma hayo alxamdulilah war caruurtii baa baabaadoo dhimatay alxamdulilah khalaas waaba alxamdulilah warkiisu waaba shukriba oo ma dhici kartaa musiibo inaad ka shukrido see ku imaan karta waa markaad martabadeeda gaadho iyadoo musiiba baad haddana shukrinaysa kaana nicmo oo kale aad ula dhaqmaysa kaana nicmo lagu siiyay la nicmo laga shukriyaa sooma si nicmo oo kale aad ula dhaqmaysa laana dhowr dhinacba markaad ka fiiriso alxamdulilah baad dhihi masaa'ibta kugu dhacaysa dhinac markaad ka fiiriso oo ah musiibadan ku haysata horta dembi aad gashay bay ku timid dembi aad gashay bay horta ku timid ilaahay kuma dulminin sooma طيب mid isweydii marka dembigan lagugu cuquubeeyey ee cuquubadiisa lagaaga dhigay in caafimaadkaagii la galo cudur kugu dhaco ama cuquubadiisii laga dhigay in caruurta lagaa baabi'iyo ama cuquubadiisii laga dhigay in gaajo lagugu sallido ka waran haddii aakhare lagugu dibdhigi lahaa cuquubada iyada oo inta adduunka caafimaad lagu siiyo oo lagu dibdhigo aakharo cadaabka lagugu geyn lahaa ka waran kee roon ma waxoogaa adduunka in lagu yaro ma joojiyaa roon oo aakhare lagaa cafiyo mise adduunka inta lagu bulaaliyo in aakhare lagula sugo cadaabka lagu geeyaa roon war kee roon alaalaahi waxa roon hala ii soo hormariyo soo ma kollayba haddaan laiga saamaxaynin hala ii soo hormariyo halkaa markaad dhankaa ka fiiriso waxaad leedahay ilaahaygii aan aakhare iigu dibdhigin ee adduunka ii soo hormariyo alxamdulilah soo alxamdulilah ma waa alxamdulilah dhinac kale markaad ka fiiriso masaa'ibtan ku haysata tu dad kala haysata markaad garab dhigto adiga waxay taadu noqonaysaa laciif saqiir bay noqonaysaa adiga haddaad waxoogaa caafimaadka ka sheeganayso laakiin aad ladan tahay caruur baad haysataa reeraad haysataa cuntaad haysataa waad ladan tahay xoogaa uun muxuu ahay sankorow baa kugu yara dhacay dhiikar baa ku yara haya waad rafaadsan tahay laakiin mid ma ogsoon tahay mid baa caafimaadna aan haynin caruurna aan haynin muxuu ahay hoyna aan haynin lixdiisii lixaadna aan haynin soo ma kaas markaad fiiriso dhibkaaga garab dhigto maxaad dhihi marka alxamdulilah ilaahaygii aan saas oo kale iga dhigin waa alxamdulilah wallahi taydu waaba qarsaba waaba farta kula cararba taydu soo ma alxamdulilah sidaas daraaddeed masaa'ibtu dadka caarifiintae fahmaya agtooda ruux markuu iimaankiisu sarreeyo wuxuu noqonayaa shaakir buu noqonaya marka waa maa bayna saabirin wa raadin wa shaakir qodobka haddaan intaa kaga gudbo intaana ka gudbin waxaan doonayaa inaan tilmaamo saas daraaddeed baa nebigeennu salawaatu rabbi wasalaamu calayh wuxuu inaga reebay markay dhibaatooyinku inugu dhacaan inaan dhibaatada ka sii fikirno oo aan isticmaalno low alilaahi saa haddaan yeeli lahaa saa ma noqotay war haddii la taxadari lahaa war ninkan markuu baabuur ku dhacay waa laga dahay haddii markaba ambalaas lagula ordi lahaa ma dhinteen war ninkan cudurka waa lagu halmaamay haddaan isbitaalka geyn lahayd wallahi waxbaa lowdaa joojiya buu nabi sal alay wasalam lowdaa joojiya lanna dhib waxaan hayn keeni mayso xadiidka fi saxiixi muslim ayaa nebigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayh xadiidku wuxuu xadiid ka bilinaya muxuu ahaayey alyad alculya khayru min alyad asufla laakiin waxaan ka soo qaadanaynaa wain asaabaka shayun falaa taqul low annii facaltu kada kana kada wakada haddii wax ku asiibaan ha dhihin haddaan saa yeeli lahaa saas iyo saasay noqon lahay walaakin qul qadara allahu wamaa shaaa facal faina low taftaxu camal shaytaan ilaahay baa qadaray allana wuxuu doonuu sameeyaa low ha dhihina iska daaya lowda haddaan saa yeeli lahaa saa ma noqota haddii saa la yeeli hadday saan la yeelina saa noqon lahayd iska daaya buu nabi sal lla alay waslam leesh lianna irid shaydaan bay idinku furaysaa
maxaa laga hadlayaa haddaad isa sii weydiisood waxa sii daba gashood maskaxdaada ku mashquuliso waxna kaba qaban kartid jiraadna ka qaadi adigu wax dhacay miyaad wax ka bedeli kartaa haddaad maanta dhan ka fikirtood u soo jeedo waxbaad ka bedeli kartaa waxba kama bedeli kartaa keliya tawaad ku jiranu aakhiradaadiina dhib baad u geysano yani wax way ilaahay qadihiisa iyo qadarkiisa oo ku qanci weyday adduunkaagiina waad isdhibi sidaas daraadeed kaga gudba inta kaga gudba macnahaas rabbi tilmaamaya tabaarak iyo nabigu tilmaamaya salawaatu rabbi wasalaam alayhi marka arrinka masaa'ibta bay ka fududeynaysaa kullama iimaankaagu sareeyo masaa'ibtu waa ka fududaanaysaa ducadii nabigeena waxay salawaatu rabbi wasalaam alayhi wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alayna masaa'ib ad-dunya ilaahu yaqiinta waxaad naga yaqiintu waa iimaanka qaybihiisa u sareeyo yaqiinta waxaad naga siisaa wax masaa'ibta adduunyada aad nagaga fududayso kullama yaqiintaadi iimaankaagu sareeyo masaa'ibta waa fududaanaysa culeysku waa ka fududaanaya dareen badan inay culeys badan aysan kugu keenin ayaa dhici karaysa waxa kamida oo qodobka labaad u yahay oo daawada u noqon kara ama ka hortag u noqon kara cudurka noocaas الاتصال الوثيق بالله تبارك وتعالى إنه أدونكو إلهي لليهي حرير أدق ربي قال يا أدقة حرير كإذن كان حيا إنه أدقيه ومحوية حرير كهذه ربي كان حيا وطاعة أعماش صالحة خيراتك هذه حرير كاسد بعه oo xiriirka rabbiga aad la leedahay uu jilco waxa dhacaysa waxaad waayaysaa xirsi xidhkii Allah aad waayaysaa kadibna adiga naftaada iyo shaytaan baa la sukin daynaya laana inta aan ku jirno waa ilaalada rabbi way adduunka waxa inala jooga nafteena oo shar badan oo gudaheena ku jirta inna an-nafsa la ammaratun bis-suu iyo shaytaan iyo jiman iyo makhluuqaad shar badan baa inala degan dhulka waxaan kaga xirsi xidhanahay oo inaga ilaalinaya waa xiriirka rabbi tabaaraka wa tacaala kullama adoonku marka xiriirkaasi uu yareeyo ama uu gooyo ilaahay tabaaraka wa tacaala ilaalintiisii buu waayaya kadibna waxaa lagu salidayaa naftiisa shaytaan iyo jin iyo balaaya lagu salidaya saas daraadeed xiriirkaaga aad rabbiga la leedahay adkee oo taacadiisa waajibaadka gudashadooda xaaraanta ka fogaanteeda taacadkii khayrkoo la badsado ayadana waxay ka mid tahay al-ittisal al-wathiq والتفرق لعبادة الله تبارك وأداء الواجبات وترك المحرمات نبينا صلى الله عليه وسلم حديث القدس ربي وكورني أيوح ليه هي ربي تبارك وتعالى يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملأ صدرك غنى وأسد فقرك وإلا تفعل أملأ صدرك شغلا ولم أسد فقرك ابن آدم أبو رب الله تبارك وتعالى عبادة إذا أفارق عبادة إذا أفارق ضاعة إذا قبو وحن شعلها السماء هذا صايش قلبي قاقي الله بتاعه وحن كبو حين يا غني نيمو قناع السنان دقنان شو حسلوني dareen raaxa leh ayaan qalbiga kaaga buuxinaya baahidaadana ana daboolay hadaad yeeli weydo Soomaa oo xariga goyso oo cibaadadayda u faaruqi weydo rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa tacaala qalbigaagana shuqul baan ka buuxinaya baahi aan dhamaanayn iyo humuum iyo murug aan dhamaanayn iyo balaayo inay soo tartamooyee aan isdhimid lahayn ayaa qalbiga lagaaga buuxinay gaajo iyo oon iyo rafaad iyo deganaansho la'aan iyo xasilooni la'aan ayaa qalbiga lagaaga buuxinay baahidaadana dabooli maayo rabbi tabaaraka wa tacaala sidaas daraadeed cibaadadu waa xisni cibaadadu waa xirs waa dhufays ruuxu ku jiro oo uu kaga jiro meel fogba intaan la aadin ba cadawga ugu kuugu dhow oo naftaada ah waa xisni iyo dhufaysaad kaga jirto waa dhufayska markaad ka baxdo malay biyihiisa ka dhaxbaxay baata inaad bakhtido iyo inaad rafaado hada wax weeye marka curdaad u tahay macnaha waxa kale oo tilmaamaya
حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر بادر إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم مركو عليسكو يمادو صلاة ودق دقيجر. وحكتوصي حديثك في الصحيحين كيمت من حديث أبي هريرة، والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام 3 عقد يضرب مكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد. روح مركو هبينكي ساحدو شيطانكو قدادك هلكا قدادك وحوكا قنتيا أفر قنت 3 قنتمود 3 قنتمود وقدادك كاغا قنتيا mid kasta oo 3 guntimood kamida wuxuu ku dhufanayaa ku shaabadaynaya habeen dheer baad yaa ku dul saaran iska seexo war habeenkii wali way waqtigu waa laaban yahay jif seexo yuu kulay nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam fa in istayqada fadhakara Allah halal uqdah haduu hurdadii ka soo kaco oo markuu hurdada ka soo kaco ilaahay xuso dhikrigi hurdada markaad ka soo boodo xus baa jira ilaahay la xus sooma dhikrigi markaba carabku ilaahay xusay tabaaraka wa taala markaba 3dii guntimood mid baa furmaysa طيب فإن توضأ إن حلت عقدة مركو soo kaco weysaysto guntinti labaad baa ka furmaysa فإن صلى إن حلت عقدة مركو tukado guntinti saddexaad baa furmaysa طيب فأصبح نشيطا طيب النفس مركزا واغو وحو بريا اسغو فرفرعوني iyo nashaad leh naftiisuna ay deganto xasiloon tahay oo faraxsan tahay ayuu waagu u bariyay wuxuu qaabilaya waa cusub wuxuu qaabilaya nolol cusub wuxuu ku soo kacaya farax wuxuu noloshii ku galaya nashaad iyo firfircooni buu ku galaya laana culayskii oo dhan baa laga furfuray seetadii iyo dabarkii iyo guntimii haystay oo dhan baa ka furmay wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wa illa asbaha khabitha an-nafs kaslan haduu yeeli waayo hurdada u soo kici waayo ka kici waayo oo weysadii iyo salaadii iyo taacadii u kici waayo wuxuu hurdada ka soo kacaya asagoo naftiisu khabiitha tahay nafxun oo caajisan oo rafaadsan oo murugsan oo walbahaarsan bawaagu u bariyaya markuu soo kacaya waa cagjiidahaya shaqadii aad waa rafaad soo kac waa rafaad qabayso waa rafaad isaga dhanba noloshiisu kadeed iyo rafaad waa leesh laana guntimihii oo isfuulfuulay baa dul saaran sidaas daraadeed taacada Allah tabaaraka wa taala salaada iyo soonka iyo sadaqada iyo khalqiga ihsaan loo sameeyo iyo dacwada iyo diinta la faafiyo iyo cilmiga la barto la baro kullu dalika wax weeyaan waa asbaabta keentay kamid tahay ruuxu inuu humuumta iyo cudurrada nafsiga ah inuu ruux ayna ku dhicin ama haday ku dhacaan inuu ka daawo waxay kamid tahay yani waxyaalaha muhiimka ah oo macnaha daawooyinka oo xadiista nabiga tilmaamay sallallahu alayhi wasallam daraadeed waxaan leenahay al-ittisaalu al-wathiq billahi tabaaraka wa taala adoonku waa inuu xiriirkiisa rabbi uu la leeyahay uu xoojiyo qodobka saddexaad ee daawada noqon kara waxa weeyaan nusuustu tilmaantay الفهم الدقيق للواقع وللحياة ولما يجري في الكون وإنه فهم حيل دير إساقنا أوليهي نلاشا يادونك وإنه كتشوابي كرو فهم سيه محا كونك الله أبوري وإنه فهم سيه أذيك محا لغو أبوري وإنه فهم سيه noloshan lagu jiraay yani xaalkeedu muxuu yahay waa inuu fahansan yahay Allah tabaaraka wa taala wuxuu u abuuray aadamahan inuu imtixaano waa la wada imtixaanayaa marka kalladanna waa imtixaanaya ka dhibanna waa imtixaanaya imtixaanka in lagu wada jiro waa in ruux fahansan yahay waa fahmul hayaa inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون معها هدي لغو قديو واحد ربتي آدويدنا إن لغو نعي معها هدي مد أما أديك بوحي آدربتي كل لغو ودسيين معها إن لغو تعليه إن لغو دورتي معها كل السيين والامتحانية
kan laga qadiyeyna waa la imtixaanaya imtixaanka natiijadiisa iyo abaalgudkiisuna daar kale u leeyahay saas daraaddeed haddaad dhibban tahayna dhibku waa waqti buu leeyahay haddaad ladan tahayna ladnaantani ma sii jirayso adduunyadani marka imtixaanka in loo abuuray ruuxu markuu fahansan yahay wax badan baa ka fududaanaya fahamka khaladka ah oo dadka aan aqoonta lahayn ay fahansan yihiin oo rabbi ku sheegay tabaaraka wa tacaala suuratul fajri markuu ka hadlayay alla yidhi tabaaraka wa tacaala fa ama alinsaanu idaa ma btalaahu rabbuhu faakramahu wanacamah fayaquulu rabbii akraman wa ama idaa ma btalaah faqadara calayhi risqah fayaquulu rabbii ahaanan kalla baa layidhi insaanka markuu alla imtixaano baa layidhi oo uu u nimceeyo risqa u waasiciyo maxaa laga hormariyey markuu imtixaano marka waa imtixaan wuxuu leeyahay rabbi baa i karaameeyey aniga waa lay doortay khalqigaa layga jecel yahay war see laguu jeclaaday halshani waxaan rabay baan helay wa amaa idaa ma btalaah markuu imtixaano alle faqadara calayhi risqahu risqiga uu ku cidhiidhiyo fayaquulu rabbii ahaanan rabbigay waa i ihaanaystay aniga waa lay nacay waa lay tuuray alla muxuu iga damacsan yahay maxaasaa laygu gelayaa warkaasuu gelahaya war laguma nicin ya cidhiidhiguna nicid ma aha siintuna doorasho iyo karaamayn maaha laakiin labadaba maxay yihiin labaduba waa imtixaan labaduba waa imtixaan markaad saa u fahansan tahay wax badan baa marka kaa fududaanaya waxaad leedahay alilaahi markaad qatan tahayna war waad imtixaanan tahay imtixaanka ha ku dhicin oo sabir markaad waxaysana war waad imtixaanan tahay waad ladan tahay war waad imtixaananta imtixaanka ha ku dhicina shukri waata nabigeenu sal alla alay wasalam ku tilmaamay ruuxa mu'minka cajaban liamri lmu'min xadiidkii suhayb fii saxiixi muslim cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr in asaabathu saraa shakara fakana khayran lah wain asaabathu daraa sabra fakana khayran lah walaysa dalika ila lilmu'min mu'minka arrinkiisu cajab bay leedahay waa la yaab hadday xaalad farax leh wax lagu farxo oo uu jecel yahay hadduu helana waa shukrinayaa markaasay khayr u noqonaysa xaalad dhib leh hadday ku timaadana waa sabrayaa markaasay khayr u noqonaysaa xaalkiisoo dhan marka cajab buu leeyahay waa wada khayr mu'minun baa iskale buu nabigu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saas daraaddeed inaad adduunka saa u fahanto ayadana waxay ka mid tahay waxyaalaha naafica oo ku anfacaya oo aad marka horeba ku talagasho warniyahow maqaadiirtan rabbaanigee socotiya adduunyadan wada imtixaanaadkaa adiga yani ha ku talagelin inaad jid yani isaga dhan wada ubax ah oo muxuu ahaaye sijaayad guduudan lagu goglay noloshu weeyana waad iskaga durdurin doontaa meehe mar walba waxaad ku talagashaa aswal ixtimaalaat inaad geli karto xaaladda ugu xun inaad geli karto mar walba ku tasho qadiirta rabbi wax kuu qoran ma garanaysa nasalullah alcafwa walcaafiya ilaahay baan cafi iyo caafimaad weydiisanaynaa laakiin waxa weeye wax kasta inay kugu imaan karaan marka horeba ku talagal waxaad ku talagashan tahay marka hadduu kugu yimaado culays badan male qaab loogu bixiyo makhrajkiisina sharciga iyo rabbi tabaaraka diintiisa kuu samaysay waxaa xiga oo isagana qodob ka mida humuumta daaweeye ka mida inuu ruuxa hamigiisa iyo murugtiisa u bato murug aakharo haddaad uun ku dul wareegto uun sida xoolaha oo kale intan yarta ahee inaga hor muuqata gaalada iyo xayawaanaadka ayaa lagu sheegay saas keliyeeto uun muxuu ahay maxaad cuntaa maxaad cabtaa xaggeed ku hooyataa shahwada xaggeed ku gudataa maxaad dhigataa intaa uun haddaad ku wareegaysato oo intii xayawaanaadka ah ilaan adiga xoolaha maxaa ku galgasantii haddeen xooluhu waa foofaan lo-da iyo geela iyo adhiga waa gaxjoodaan way foofaan way soo daaqaan markay daaqaan kadibna biyay u baahdaan biyaha waa cabbaan si aad u cabto hooy bay u baahdaanoo xeray galaan soo ma kadib shahwaa qabato shahwadiina way isku gutaan intaa haddaad u nooshahay adiga xooluhu maxaad ku kala duwantihi aadamaha ilaahay waa fadilay walaqad karamnaa bani aadam
ilaahay waa karaameeyey oo wuu ka fadilay xayawaanaadka waa ka fadilay haddii marka humuumtaadii iyo murugtaadu intan ay ku soo urursato oo adduunyo uun murugtaadu ay noqoto cudur baad ka qaadi waana meelaha dhibaatadu ka imaanaysa murugtaada marka waxaad u badisaa aakhiro u badi waxaad ka murugtaa geerida waxaad ka murugtaa qabriga waxaad ka murugtaa imtixaankiisa iyo interviewga qabriga ka jira waxaad ka murugtaa bacsiga iyo soo saaridda waxaad ka murugtaa qiyaamo iyo maxaa yaala ahwaasheeda waxaad ka murugtaa rabbigaa baad hor istaagi doontaa maxaad la hortagi doontaa waxaad ka murugtaa naartii jahannamaad dul mari doontaa wain minkum ilaa waariduha kaana calaa rabbika xatman maqdiya talow ma gudbi doontaa mise waad ku hooban doontaa waxaad ka murugtaa talow ma jannaad ku dambayn doontaa mise naar war khaatumadaadu maxaad ku dhiman doontaa murugtaada aakhiro u badi hadday murugtaadu aakhiro u badato waa daawo laakiin murugtaadu hadday adduunka u badato waa jiro saas daraadeed ba xadiidka sunan maajah iyo keyrkii ku yidhi nabigeenu wuxuu yihi sal alla alay wasalam man jacala alhumuuma haman waaxida hama alaakhira jamaca allahu lahu amrah wajacala ghinaahu fii qalbih waatathu addunya wahiya raaqima ruuxii murugtiisa ka dhiga hal murug walbahaarkiisa aakhare ka dhiga ilaahay arrimihiisa waa u ururiyaa howlahaaga waa laysuu kaa toosinaya waa lagula shaqaynaya kow qalbigana ilaahay wuxuu u geliyaa haninimo deganaansho qanacsanaan raaxo xasilooni baa qalbiga loo geliyaa adduunyada wixii looga qorayna ayada oo sanka ka tolan oo qasab ah baa loo keenaa ilan marna ma segtin soo ma muxuu intaa ku helay wuxuu ku helay murugtiisa aakharu u badiyey wuxuu nebigu sal alla alay wasalam ruuxiisa murugtiisa adduunyadu qaybsato oo togaga adduunyada uun murugtiisa ay la kala tagto saddex arrimood baa isagana lagu imtixaanaa kow shatata allahu calayhi amrah arrimihiisa ilahay baa ka kala daadiya waa kala daadsan yahay xadhiguu xidhaba waa la furaa laba wajacala faqrahu bayna caynayhi baahi iyo gaajana waxaa la dhigaa labadiisa indhood dhexdood bimacnaa waa meeshay soomaalidu dhihi jireen gaajada inay iyadu ku aragtaan roon inaad adugu aragto ma fiicna aduu ruuxu gaajo arkay mudutuushuu arkaba wuxuu gaajuu moodahay gaajo soo socoto gaajoy waxaa ku dhacay cudur gaajo layidha marka gaajo isagu unu arko u muuqatana waa ku dhacaysaa oon daawo lahayn iimaankaa laga qaadaya walam ya'tihi min addunya ila ma kutiba lahu nabi sal alay waslam adduunka uu saa ugu rafaadahayana oo uu saa u noqdayna intii loo qoray waxaan ahayn calfan maayo marka murugtaada iyo walbahaarkaaga murug aakhare ka dhig waa daawoobi culays badanoo ku haysta waa kaa dhacaya waxaa ka mid ah daawooyinka qiraa'atu alqur'aan bitadabbur wa tilaawatuhu maca tamacun almacaani qur'aanka inaad akhrido adigoo macnaha dhuuxaya macnaha dul istaagaya qalbigaaga ku dhalaalinaya leanna qur'aanka kariimka waa daawada ugu muhiimsan oo cudurrada qalbiga daaweysa rabbigeen tabaaraka wa tacala qur-aanka wuxuu ku leeyahy yaa ayuha annaas qad jaa'atkum mawcidatun min rabbikum wa shifaaءun lima fi الsuduur wa hudan waraxmat lilmu'miniin qul bifadli اllahi wabiraxmatih fabidalika falyafraxuu huwa khayru mima yajmacuun alla xaggiisa waxaa idinka yimid dadow waano iyo daawadii wixii laabta ku jiray daaweyn lahayd qur-aanku wuxuu daaweeyaa waxa laabta ku jira cudurrada ah shirkiga waa cudur hawadu waa cudur bidcadu waa cudur nifaaqu waa cudur
همومتا iyo غمومتaasi waa cudur stressku waa cudur qalaqku waa cudur xasadku waa cudur cudurrada laabta ku jira daawadiisiiba xagga rabbi idin ka timi وننزل من القرآن ما هو شفاء وداو لكن قرمو داو نقونا مركز قادت مركز كو داويس هدو سهلكا كو سوريه اما لغا يا بابا ان هذا المعاني دي سغارين داو دي سفيعن هلميس قلبي ما دريمي لان قرآنكو وهذلكي الله تبارك وتعالى وحا كجيره وحان كجيرين هذل كلا او دن كجيرين حتى هذا الرسول كوحن كجيرين با قرآن كجيره لانه هو كلامك ربي تبارك وتعالى كلامك ربي marka wax la mida ma jiro haka ilaahay ka cabira hatta hadii buur korkeeda lagu soo dajin lahaa buur dhagaxaasi waa dildilaaci lahaa yani aadamaha qalbigiisu sidoo adag ee uu qalafsan yahay baa la tilmaamay marka sir baa ku jirta quraanka kariimka waa shifaa waa daawadii laabta waa saas daraadeed ruuxa quraanka akhriya oo bartay oo macnihiisa fahmayay cudurradaasi kuma badhacaanba غالبا kuma dhacaan xaylay wuxuu haystaa wixii ka ilaalin lahaa waa talaalay waa laga talaalay waa ka talaalay laakiin waa goorma quraanka macnihiisa inaad fahmayso وبالمناسبة waxaan doonayaa inaan idinku baraarujiyo Soomaali hadaynu nahay quraanka waa ku fiican alxamdulillah waxaan ka mid nahay caalamka ummadaha quraanka barashadiisa iyo xifdigiisa ugu fiican baan ka mid nahay saas darteed hadaad caalamka marto waxa laga yaabaa inaydan aad u marin caalamka Australia Canada Mareykanka Yurub Afrika aad baan u maray caalamkaas Ramadaan marka la gaaro masaajidda aqlabkooda dhalinyaro Soomaaliya tujinaysa hatta Arab ma quraanka waa ku fiican alxamdulillah laakiin ceebteenu maxay noqotay ceebteenu waxay noqotay akhriskaas inooma dhaafsisna ma soo rogonayna markii macna la gaaro ma soo rogonayna waxa inaga maqan marka ruuxii baa inaga maqan ruuxii rasmiga ah iyo nuxurkii baa marka inaga maqan saas daradeed baa saxaabadu ridwaanullaahi calayhim u fiirsada say wax u baran jireen waxay ka gedisan tahay qaabkan anaga hadda quraanka u baran saxaabadu ridwaanullaahi calayhim sida atharkii Abu Abdurrahman as-Sulami wuxuu leeyahay raggii quraanka baray sida Uthman ibn Affan iyo Abdullah ibn Mas'ud iyo waxay noo sheegeen inay nabiga sallallahu alayhi wasallam quraanka uga qaadan jireen 10 aayadood bay baran jireen 10 ka aayadood markay qaataan baa waxay baran jireen akhriska qiraa'ada hada arabi ahay inagu qiraa'ada fiqhiga ku jira iyo ku amal falka markaas 10 ka ay saa ku sugaan bay 10 labaad qaadan jireen 10 ka markay inta sugaan bay 10 kala qaadan jireen wuxuu leeyahay fata'allamna al-qur'ana wal-ilma wal-amal hal mar baan isla baranay quraanki cilmigi iyo fiqhigi quraanka ku jiray iyo ku amal falkiisiiba tarkiisku marka wuxuu ahaa quraanka in macnihiisa la barto iyo fiqhiga ku jira annaga laakiin lafdigii baan baranay kadibna macallimiin baaba lagu noqday wada macallin dadkiiba tujinayo imaam ah warkaalay wax baraad ugu miyaad ku kari ya sheekhnu waa duubtaybe marka waxay u baahan tahay qaabkeena waxbarashada ee quraanka in dib loogu noqdo wax laga bedelay u baahan tahay munaasabad ahaan baan macnaha masalada iyada u baraarujinaya marka quraanka akhriskiisa iyo macnihiisa oo la dhuuxo oo daawooyinka ugu fiican ugu muhiimsan oo bini aadamka daaweeyo ay kamid waxa kamid ah ducada kamid ilaahi tabaaraka wa taala inuu adoonku baryo oo baryadiisa badiyo xadiidka Abdullah ibn Mas'ud Ahmad ibn Hibban baa soo saaray Hakim uu saxiixiyay ibn Hajarna uu tahsiinay xadiidkaasi wuxuu leeyahay nabiga sallallahu alayhi wasallam man asabahu hammun aw huznun فليدعو بهذه الكلمات روحي همي كدعو اما حزن wax tagay ama wax soo socda fikirkooda culays uu ku hayo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam ducadan kalimaadkan ha ku ducayso maxay Allahumma ana 'abduk ibnu 'abdik ibnu amatik nasiyati biyadik maadin fi hukmuk 'adlun fi qada'uka as'aluka bikulli ismin هو لك سميت به نفسك
أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. روحي همي هيو كلمات كاها كدو عيسى بن صلى الله عليه وسلم معنو وحويان الله أدون كاجيب عنها أدون كاجا ويل كيسيبانا ما علمه سيبانا أدون تادا علمه هذي بانا تلاضا يدو قعان تادا كجرتا حكم كاجا يقف لحيا قضاها يوحد يحكمتي عدالة دوي لماذا ظلمين واحد كستود يقول حكمتي عدالة دوي waxaan kugu weydiisanayaa magac kastood leedahay oo naftaada ku magacawday ama kitaabkaaga aad ku soo dajisay ama cid khalqigaaga kamida aad bartay ama aadba aqoontiisa iyo cilmigiisa khaas la tahay magacyadaas oo dhan baa waxaan kugu weydiisanayaa inaad quraanka ka dhigto laabtayda nuurkeeda qalbigayga rabiiciisa rabiica waa guga يعني دبيعدي كسو صار لهيد خيرك كسو بخين لهيد إناد كديكتو والبهار كيجي مروكته إذا متكسية ومروكته إيجا قاضي إلهه إيجا ديك دعاء مركو الروح وكل دعايسته همجي سئي غمجي حزن جوا كتجيه حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم معناها صوت الماما يا مركوا من أنجع الأدوية ده وين ككو وفا إيدا البدن أي كمته وحكم ده inuu ruuxu markii ay culays ku yimaado oo uu dareen ka qaado inuu isku qanciyo murugtan iyo ciriirigan iyo dhibkan ku haysta ma sii jirayo waa dhamaanaya leesh ama intaad nooshahay baaba ilaahay faraj ku furahayaayo waad ka bixi doontaa ama geeri baaba imaano waad ka nasanoo waxan waad ka bixi doontaa marna ma daa'imaysid لأن الروح مؤمنك أما أدونك برواقها كويس أما هكل بناده أدونك وكتيرة سجن بكتيرة الدنيا سجن المؤمن سجن جا هذا نكلا درن هذو مرك الروح الرتشقبه آدمه رتش كنولي هذا الرتشقب تينو وحنا أتكبح دونتو ليبكن كذا أتكبك سون دونتو وبيح دونتو سيدا تربتي واحد شعلي وآفدني كاكع دونتو هذا تكون عصنتهاي وداو بلايا وحويان إن تكون عصو فرج بمجرى حلنا مجرى حال ضاد صاوي مركاسي وحوي رجده هذا كاسو حرنتو بس وي مركا وين رجل هذا وين رجل هذا وحنا إنه ضمانه يو رجده تأخر كلية تأدونك حتى سيدا دبا آدمها إلهي دبا عدو قليبا وحاكم ذا إلا يلاهدو وحنا واض هيستا وحنا وكل لابين وحني وكل لابين هدو وايو وحني واض هيستا كلية كما في الله سكستا وحني هو بدناد صومينا أركي هذا dadka adduunka oo dhan loo dhiibay boqorada iyo madaxda iyo mujtamacaadka adduunka gacanta laga galiyay lagu farqay hadaad u fiirsato qaabkay u nool yihiin iyo muxuu ahaay moraalkooda iyo qalbigooda hadaad fiiriso waxa ka moraal fiican ruuxa caalamka gaajaysan ku nool wuxuu kaga moraal fiican yahay sideedaba adduunku wuxuu ku fiican yahay intaadan cuntada cun inaad gaajooto markaas cuntadu macaanta soo saasma cunta aad u soo gaajootay baa macaan waa macaan leh biyo aad u soo oontay oo baahidooda dareentay baa macaan leh sooma hurdo aad weyday baa raaxo leh shayga markaad weyday oo adoo la aad hesho markaasuu macaan leh laakiin hadduu mar walba agtaada ka badan yahay ka war waxa adduunka ugu qaalisan hadii dhinacyaha laga daadiyo marka dambe waad un ka yaqyaqsan mar balaayada yaa dhinac uun dhaafiyadi that's why dadku adduunka dadka ugu nolol roon saan soo sheegnay baa isu dilayaan oo u intixaarayaan marka aadamu wuxuu ku fiican yahay adduunka hadii la joogaba in la yiraahdo inta nawaad haysataa intanina waa ku soo socotaa
mu'minku muxuu ku nool yahay adduunkanna intanaad haysataa waxaad ku nooshahayba laakiin adduunkan waxba ma ahee waxa aakhira kuu soo socdaa wax weyn ah waad ka nasan doontaa laakiin nabigu sal alla alayh wasalam lahaa ruuxu markay dhintaan mustariix wa mustaraaxun minhu xadiis saxiix muslim ruuxu markuu dhinto ama waa mustariix oo markaasuu nasanaya ama markaasaa laga nasanaya yaa ayuha annaasu yaa ayuha alinsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqiih war insaanow mid kadeedan baa too rafaadsan intaad rabbiga kala kulmayso boqorku waa kadeedan yahay oo taajirku waa kadeedan yahay oo caalimku waa kadeedan yahay oo nin aan kadeednayn oon rafaad haysanin ma jiro waxaa laga yaabaa markaad adigu aadan haysan inaad isleedahay wallahi niyo haddaad yani aad waxaas heli lahayd alla maxaad raaxaysan lahay laakiin adduunya nin raaxa ku qabo ma jiro nin raaxa ku qabo ma jiro kulli nin walba kadeedku meel buu ka haystaa sidaas daraaddeed baa daawadu waxay tahay inaad mar walba ku qanacsanaato xaaladaadu waa isbedeli doontaa rajada inaad qabto yaa saaxiba alhammi ina alhamma munfariju abshir bikhayrin faina alfarija allahu alya'su yaqtacu axyaana bisaaxibihi laa tay'asanna faina alkaafiya allahu ida buliita fahiq biاllahi warda bihi ina aladii yakshifu albalwa huwa allahu اليأس يقطع أحيانا بصاحبه لا تجزعن فإن الصانع الله إن مع العسر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا waxay culimadu yidhaahdaan meesha aayaddu waxay kulmisay hal cusri iyo laba yusri laana waxaa la yidhaahdaa luqadda carabiga shayga isagoo macrifaysan haddii laba goor la soo celiyo waa un hal mid laakiin isagoo nakira marka laba goor la soo celiyo labuu noqdaa aayaddu cusrigana way macrifaysay yusrigana way nakiraysay saas daraaddeed yusriga nakirada laba goor soo noqday waa laba yusri waay cusriguna waa uun hal saas daraaddeed ba waxay yidhaahdaan lan yagliba cusrun yusrayn waa saas bal mar kasta oo cidhiidhigu bato oo xaaladdu adkaato markaasaaba farajku soo dhowey kurbadu markay adkaataba farajkii baa qarka saaran maxaa yeele ilaahay sunnadiisa ma aha inuu dadka hal xaalada u daayo waa yani waxa taqallubaadka isbedelkaas waa marka inaad mar walba ku qanacsantaa waxaa ka mid a daawada ka mid a alqanaaca waalridaa bima qasama allahu laka mar walba inaad ku qanacsantood raalli ku tahay wixii rabbigaa qayb kuu siiyey wixii nolosha qayb lagaaga siiyey alxamdulilah ku qanac qanaacadaasi waa muhim ومد نبي الله صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عمرو بن عاص في صحيح مسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه وحال ليبان الروح إله إسلام نمسي كو لبا إلهي كو إرزاقي وحكو فلان وكبضني كفافكو ووحكو فلان باهيد هذا ضروري أساسي الدبولي كرا سيادنا أنكا أهي انت أنا إلهي كو إرزاقي مرصد حالنا انت إلهي كو قنعي إيمانكو قبق لأن باشنا الدنيا ده مركي كو بضطبع wax ka fiican bay yay ku seejinaysaa ku khasaaraysaa marka xogaa kafaafoon ku dhibin aadamahana aad kaga kaaftoonto intaaba haddii lagu siiyo alxamdulilah haka maqal laakiin aad ku qanacsanta waa kan nabigu lahaa salawaatu rabbi wasalaamu caleyh laysa alghina min kathrati alcarad aw can kathrati alcarad walakina alghina ghina annafs haninimadu waa qanaacada haninimadu xoolo badni maaha waxaad arkaysaa mid taajir aad u xoolo badan oo ilaahay hanti siiyey oo haddana faqiiraa jira sooma carruurkaasi qaaraan yar ugu tag adugu ya war arday baa waxbarasho u baahan war ruux baa jiran war in baa guriga laga soo saaray ya soomaalida waxay dhahaan dad waxaa dadka ugu yaqaan waxay dhahaan nin barye iyo nin u taliyey iyo nin tuugay nin u taliyey iyo nin tuugay adiga ama allafahaaga u tuug ama dadka u tuug annaga dadka lafaha annaga uma tuugnaa laakiin dadkaan u tuugnaa mashaariicdoodaan ugu tuugnaa iyaga danahoodaan ugu tuugnaa dadka dhibaataysan baan ugu tuugnaa marka dadka waa baranay dadka qaarkoodoo ilaahay wuxuu siiyey aada la yaabayso baa haddana faqiir ah waa faqiir markaad aragto calaacalka ka baxay iyo ninkaasi iimaan la-aanta ka muuqata wallahi waxaas dhii maxaaba kuu keenay baniyo waabad khaldanayd
marka faqrigu ma aha gacantaadu inay maran tahay ee faqrigu wax way inuu qalbigaagu maran yahay غنينimادuna waa qalbigaagu inuu qanacsan yahay oo degan yahay ee ma aha in qalbigaagu uu muxuu ahay xoolo la'aan yahay macnaha way macnaha nabigeenu tilmaamayo salawaatu rabbi wasalaam alayhi waxa kamid ah daawooyinka muhiimka ee u baahan inaan qaadano an-nadaru ila man huwa dunaka la man huwa fawqak markaad macaayirta nolosha adigu aad qiyaasanayso dadka ka koreeya ha fiirinina kuwa ka hooseeya wax ku qaybso mar walba dadka ka hooseeya wax ku qaybso fiiri kuwa iyaga maxaa yeelay nicmada ku macaanaanaysa marka dadka hoose fiiriso haddaad se dadka kore u istiraahdo gaad war waa laga sareeya oo ma soo qaban kartaa ma soo qaban kartid nabigeenu wuxuu yiri salawaatu rabbi wasalaam alayhi xadiidka bukhari iyo muslim ay soo saareen wuxuu nabigu yiri unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fa innahu ajdar alla tazdaru ni'matallahi alaykum war fiiriya dadka idinka hooseeya ee kuwa idinka koreeya ha fiirinina taasa waxay xaqiiqo ku tahay inaydan ilaahay nicmadiisa yasino xaqirin adiga haddaad tiraahdo waa laga xoolo badan yahay gaad ma gaari kartid waxaad igsanaysaa waxaadan soo qaban karin bal si kale haddaan u dhahno dhalanteed iyo dhaandawangaalaad daba ordaysaa ma soo qaban kartid marka soo ma biyaha ku sii muuqda biyihii meeshii aad filaysay markaad joogtaan hortaaday ka sii muuqdaan waa wax balaayo ku sii hor ordaysa waa hawada marka ku sii hor ordaysa oo soo qabasho male waa ka nabigeenu yiri salawaatu rabbi wasalaam alayhi law kana libni aadama wadiyan min dhahabin labtaqa thalitha ibn aadam ka laba tog oo dahab hadii la siin lahaa mid saddexaad buu raadin lahaa ka saddexaad hadii loogu dari lahaana mid afraad buu raadin lahaa walan yamla fama ibn aadam illa turab wa yatubu Allah ala man tab ibn aadam ka afkiisa wa fi riwayatin jawfkiisa ma buuxiyo illa carrada mooyee ilaahayna wuxuu ka toobad aqbala cidi u soo noqoto sidaas daradeed adduun raadintii ma soo qaban kartid ee waxa ku qaybsanin kuwa ka koreeyood gaad isleedahay ee waxaad wax ku qaybsataa kuwa ka hooseeya war waa laga xoolo yari oo waa laga caafimaad yari oo waa laga uruur yari oo waa laga dhibaato badan ka hoose intaad fiiriso alxamdulillah inaadan yasin ilaahay nicmadiisa tabaaraka wa tacaala ayay ku tusaysaa macna waxa kamid ah waa gabagabaynaynaa qodobkaas inaad ilaahay khalqigiisa ihsaan u samayso kullama khalqiga ihsaan u samayso wanaag u samayso ilaahay tabaaraka wa tacaala qalbigaaga inshiraax buu gelinaya waa dejinaya khalqiga dhamaanti inta ilaahay ugu talaga ihsaan loo sameeyo bima fi dhalika xayawaanaadka aadamaha kaliya ma inaad u naxdo u naxariisato u turto gacantaada u furto akhlaaqdaada iyo dhaqankaaga u furto ihsaan khalqiga aad u samaysay waxyaalaha u badan inshiraaxu sadriga keenay kamid maxay waxay ka saaraysaa cudur aad u khatar ah oo dadka ku dhaca oo la yiraahdo xasadkuna waxyaalaha diiqu sadriga keenu kamid laabtaadu inay ciidiyanto maba quuraysid ba waa dhibka Soomaaliya haysta way maxay dalkoodii u burburiyay ilaa maantana qoorta ay isugu jiraan isaga laalaada waxyaalaha u daran waxa kamid ah xasadka waxba inay isu ogoleen Sooma waxba isu ogola mid meel taagan hadii la arko waxooga hayst waxa la leeyahay sidii looga burburin lahaa ilaahu ka qaad baa qaar baa ilaahay u baryahay ilaahu ka kala tuur marka xasadkaas oo cudurrada qalbiga kamid ah waxyaalaha ka daaweynaya ayay kamid tahay inaad mar walba marka khalqiga ihsaan u samayso u tanaasusho iska cafido wanaag u samayso gacantaada u furto cilmigaaga u furto muxuu ahay akhlaaqdaada iyo dabeecadaada u furto waxa kale waxa kamid ah al-ishtighalu bi'amal min al-a'mal aw ilmin min al-ulum an-nafi'a inaad ku mashquusho wax ku anfacaya ama amal ku anfacaya ama cilmi ku anfacaya oo aad ka fogaato wax la yiraahdo bataalada shaqo la'aanta iyo bataalada iyo meel istaaga iyo waqti luminta laana ruuxu markuu shaqo waayo oo wax uu gacmaha ka hayo ama qabanayo ama dhageysanayo haduusan jirin ruuxaas naftiisu marka waxay leedahay warniyo ma joogi kareen muxuu ahay shaqo ii samee marka waa inaad shaqo u samayso iyadii marka fikiraysa waa sir rogaysa ugashaadan qabanaynin iyadii baa ku wadata
marka kadib waxaad leedahay warmaya sidan kuma jiri karee baasha waa inaan ismoogeysiiyo anoo soo jeeda waa inaan qarwo waa anoo soo jeeda waa inaan qarwo seen u qarwaya waa inaan qaad cuno la ninka qaadka cunaya isagoo soo jeedu qarwaya mugta ama maandooriye mukhadaraad buu cunayaa way gelinaysaa wuxuu leeyahay culayskana iska kala fududeynaya war maxaad culays iska fududeyn waad kadeedan tahay waxba iska kala fududeyn culays bay haysto leeyahay markaasuu markuu qaadiroodo waxa maskaxdiisu tagto oo isku dhex yaaco baa shaydaanku wuxuu ugu sheekaynayaa wallaahi ninkaagii beelaha taagtaagnaa miskiinka ahaa magaaladan muxuu ahay qadar oo dhan adayba kuu shidan tahay sarahan dheer adaa iskale waxaan adaa iskale hawlan aday kuu kala socdaan khalaas hawshiisu u kala rogahayo waagaa ku baryahaya qaadiradii iyo marqaankii baa ka degahaya mise meel bannaan buu fadhiyaa aduma maqashay indhoolow meel bannaan baad fadhidaa meel bannaan buu fadhiyaa maxaa u geynaya waxaa u geynaya ruuxa hadduu shaqo hayo mashquulsan yahay sidiisaba jaanis uma helo xataa naftiisu inay humuum badan gasho jaanis uma hayo waxaa keenaya marka bataaladaa keenaysa inuu marka ruuxu ismashquuliyo oo wax anfacaya isku mashquuliyo laakiin nabigeenu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh ixris calaa maa yanfacuka waxaad ku dadaashaa oo waqtigaaga ku bixisaa wax ku anfacaya cilmi ku anfacaya camal ku anfacaya shaqo wax koo soo galayaan nasiixa aad u baahan tahay xilli maskaxdaaduba ku wareerisiya naftaada maadaa hayaba marka saas daraaddeed waa laga maarmaan inuu ruuxu wax anfacayo isku mashquuliyo haddii kale isagaa la mashquulin doonaa qodobkii ugu dambeeya wax weeyaan in oo daawada ka mid ah yani ijtimaacu lfikri aw ijmaacu lfikri kullihi cala alihtimaam bicamali اlyowmi alxaadir inaad fikirkaaga isugu geyso camalka maalinkaas kuu yaala kii tegayna waxba kama qaban kartid haddaad maanta dhan ka fikirto wax tegay ma soo celin kartaa ma soo celin kartid mid soo socdana siduu u dhici doono iyo qaabku ku imaan doono gacantaada kuma jirto inaad gaadhina maba garanaysa soo ma waxaa laga yaabaa inaad ka fikirayso 20 sano kadib 10 sano kadib 5 sano kadib waxaana laga yaabaaba cimrigaaga inay ka laaban tahay daqiiqada ka laaban yihiin inaad gaadhi doonto garanaysid waxaa fog ee soo socda wixii tagayna waxba kama bedeli kartid sidaas daraaddeed hamigaaga waxaad isugu geysaa shaqada markaa kuu taalo ومن هنا أبو النبي صلوات ربي وسلام عليه إلهي وحو كما قال شري اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم في رواية من الهم والحزن إله مروكتا والبهارك هي وحي كذا شبان إله مغنك هكا بركة عمل كمالك كويا الله السجوج ساد ويتقارن له ساد وهجاتين له ساد صفي حروق عبادات كاجا عمل كاجا شقة هذا الدنيا مد هذا آخره hawsha maalinka ku yaala hawsha si fiican uga fikir macnaheedu ma aha mustaqbalka yaani qaabkii waxba hadajisanin oo waxba ku talagelin maaha laakiin waxaad isugu geysaa inta badan shaqada marka ku taal tu tagtayna aad hayso ku dhimo waxba kama qeyn kartid tu soo socotana yaani wax weeyaan say ku imaan doonto ilaahay gacantiisa ku jirtaa saas daraadeed aad waxaad isugu mashquulisaa midda marka ku taala waxyaalaha daawada noqon kara ama noqon karaya muxuu ahaayay waxyaalaha aad kaga badbaado culaysyadaasi ayay ka mid tahay guud ahaan waqtigu ma saamaxayaan umar intaa ka badan inaan mawduuca ka sii hadalno murtidu waxa weeyaan cudurkan oo ah cudurrada ugu khatarsan oo adduunka maanta baabi'inaya oo laynaya qaar badan garaadkoodii iyo garashadoodii qaaday qaar badan waalay qaar badan yacni cudur mustacsi ah noqday aad buu u sahlan yahay dadka ahlul iimaanka ah hadday iimaankoodii iyo diintooda ka run sheegaan ama ku dhici maayo ama hadduu ku dhacaba daaweyntiisu waa fududahay oo dariiqa iyo daawooyinka iyo asbaabta aan sheegnay kuwa kale ka badanba ayay shariicadeenu u dajisay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaan weydiisanaynaa wixii khayr inuu nawaafajiyo wixii xumaanana ilaahay tabaaraka wa tacaala naga sarfiyo wixii khalada ilaahay tabaaraka wa tacaala naga cafiyo wixii sawaab iyo wanaagana ilaahay naga ajirsiiyo kalimaadkana ilaahay nagu anfaco جزاكم الله خير وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته